askartan tababarka loo soo xiray ayaa waxa ay ku barteen ka hortagga miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa. munaasabada ayaa ujeedkeedu ahaa xiritaanka tababarka iyo qalabaynta askartii tababarka dhameystay. munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taliyaha ciidanka dhulka, taliyaasha qaybaha iyo marti sharaf kale. ugu horeyn waxa goobta hadal kooban ka jeediyay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Maxamed Taaliil Biixi isagoona ka warbixiyay ujeedka tababarkan iyo muddada uu socday. hadda ragga ku jira halkan oo ka tirsan harqaboobe imtixaan baa laga qaaday. waa raggii wax bartay oo aqoon-yahaniin ah. waxaan codsanaynaa hadda 40 baan xareynaynaa oo kala too sanca ah. 40 sanca hadda la xareynayaa. dadka ururada iyo guutooyinka marka loo soo qoro qoraal loo diro oo la yiraahdo warkeena dadka ku habboon keena. waxaan codsanaynaa hadda wixii ka dambeeya qof walba hadduu gaadiid loo dirayo gaadiid la barahayo iyo haddii la barahayo caafimaad iyo haddii la barahayo sanco qofka birimaya in loo siiyo. ugu dambeyn taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto waa Yuusuf Raage oo tababarka soo xiray ayaa askartii tababarka dhameystay ee agabka iyo gaadiidka lagu wareejiyay ku bogaadiyay shaqada looga fadhiyo in ay tahay hawl muhiim ah oo ciidanka xoogga dalka iyo bulshadaba u muhiim ah. maanta marxaladda aan ku jirno sida ay muhiim noogu tahay sancada wixii tacadira iyo wixii muxuu ahaa ii sheegay ilaala ahna taliyaha ciidanka dhulkuna waa taabtay adinkana waa la idin baray. haddii aad raaci weysaan wixii la idin baray waliba daqiiqadda ay ka dambayso aad la soco weysaan dhagarta iyo qiyaanooyinka ku soo kordhaya waxyaabaha aad ka shaqaynaysaan ee shaqadiinu ay tahay hadday aqligiina ku jiri weyso dadka ugu horeeya dhibaatadu gaartaan aad noqonaysaa. laakiin haddii aad tacadirkiinu sareeyo is ilaalisaan ka fikirtaan dhagarta iyo qiyaanooyinka imaan kara waxaad mar walba ka saramaraysaan gacanta cadow. taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waday dadaalo lagu horumarinayo ciidanka xoogga dalka qaybihiisa kala duwan.